dagaalkii laascaanood oo lagu laayay ilaalada madaxweyne Biixi tirada dhimashada SNM oo kor u dhaaftay 200 oo askari meedadka iyo dhaawacyo jidgooyo loo dhigtay iyo hoggaanka SAC oo ka dhawaajiyay arrin lama filaan ah qodobadaas ayaa muuqaalkan ku faahfaahi doona balse marka hore bogga flowde muuqaalkana la wadaag saaxiibada dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa noqday kii ugu adkaay abid dhaxmara dhinacyada Somaliland iyo SAC oo muddo ku dagaalamaya Sool dagaalka qaatay ku dhawaad 12 saacadood isla markaana ka kala dhacay meelo kala duwan oo isla gobolka Sool ah ayaa sidoo kale Somaliland waxaa lagaga dilay tiradii ugu badneed oo ciidankooda ah halka tiro intaa ka badanna lagaga dhaawacay tirada dhimashada Somaliland ayaa kor u dhaaftay 200 oo askari halka dhaawacu uu gaaray 1000 askari dhanka Somaliland sidoo kale dagaalkii shalay ayaa lagu laayay ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Biixi oo ka qayb galay dagaalkii shalay ayaa guud ahaan lagu laayay dagaalka xogaga xaqu-dararka SAC ayaa sidoo kale jidgooyo u dhigtay dhaawacyada ciidanka militariga Somaliland oo loo waday deegaanada maamulkaasi halkaasi loogu dabiibo xaalkooda dhinaca kale hoggaanka SAC ayaa ka dhawaajiyay arrin lama filaan ah isimada SAC oo dhawaan ku biiray waawaanta hoos loogu dhigay xiisadda ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee Puntland ayaa soo saaray go'aano culus isimada SAC oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa shaaciyay inay go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanka Puntland ay qabsooto kadib kulan ay la qaateen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kadib doorashadaas ayay sheegeen in la isugu yimaado wadatashi guud iyo halka la aadayo 8 Janaayo ee sanadka soo aadan ee 2024 iyadoo maalmihii u dambeeyay oo meel sare gaaray khilaafka doorashada Puntland ee u dhaxeeya madaxweyne Saciid Dani iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe oo ka hadlay shirka jiraa'id ee isimada ay ku qabteen magaalada Garowe ayaa shaaciyay in go'aankan ay ku dhawaaqeen isla markaana isla qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani garaadada ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kulan xasaasi ah kula yeeshay magaalada Qardho kaas oo isku afgarteen in ugu dambeyn xal laga gaaray khilaafkii doorasho ee doorkii maalmood ee ugu dambeeyay ka taagnaa deegaanada maamulka Puntland xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ciidamo kala taabacsan ayaa dhawaan dirir xoog leh oo geysatay khasaare kala duwan waxa ay ku dhaxmartay duleedka magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal kala hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa si adag kaga soo horjeestay in la qabto doorashooyinka qof iyo codka ah ee golaha deegaanka oo la filayo in 25 bishan ay ka dhacaan deegaanada Puntland